Ku salaamay daawada muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa arrimo ku saabsan sirdoonka. Mid ka mid ah sirdoonkii hore Britain Master Homicon oo jiray 80 sano ayaa dhakhtarka la dhigay. Taasi oo ka dambeysay markii uu in muddo ah xanuun la tacaalayay kadib saacado badan oo lagula jiray qolka adeegga degdegga ah. Dhakhaatiirtu waxay u sheegeen inuu sii noolaan doono muddo 7 cisho kaliya. Kadib markii loo sheegay in aanu sii noolaan doonin ayaa waxa uu daaha ka qaaday arrimo badan. Waxa uu sheegay inuu ahaa qofkii khaarajiyay amiiradii Diana. Master Homicon waxa uu ka mid ahaa gacan-yarayaashii amiiradda Diana. Waxa uu intaa ku daray inuu dilay dad kor u dhaafay 20 qof. Sababta dilkan ayaa uu ku sheegay in sirdoonka Ingiriisku u diri jireen dilka dadka ay u arkaan inay khatar ku yihiin amniga guud ee waddanka Britain. Haddaba amiiradda Diana waxay ka mid ahayd dadkii ku baxay gacanta Master Homicon. Waraysi dheer oo uu siiyay wargeysyada Yurub ayaa waxa uu ku sheegay in ay ahayd gabadh u qalantay inay sii noolaato. Waxa uu sheegay in ay ahayd gabadh u qalantay inay sii noolaato furfurnaanteeda iyo quruxdeeda. Sababta dilka ayuu ku sheegay in amiiradda Diana haysay xogo waaweyn iyo xogo sirdoon oo badan, kuwaasi oo khuseeya reer boqor, taasoo dhici karta inay sharaftooda dhaawacdo, khatar la gelisay amniga guud ee waddanka Britain. Waxa uu yidhi amarka lagu dilay amiiradda Diana waxa uu ka soo baxay Amiir Philip, taasi oo isagu u soo gudbiyay sarkaalkii ka sarreeyay. Waxa dilka loo ekeysiyay ama qorshaha dilka waxa loo fuliyay si qaab shil gaari ah. Sarkaalka dilkan fuliyay waxa uu yidhi way igu adkayd in aan dilo qof gabadh ah isla markaana ahayd amiirad. Waxa uu intaa ku daray sababta uu arrinkan imika u sheegay, taasi oo uu ku sababeeyay inaan dib loo heli doonin xogta ku saabsan dilka maadaama uu yahay qofka ugu dambeeyay ee nool dadkii wax ka ogaa dilka amiiradda Diana. Muuqaalkeena maanta halkaas inuu weegahay. Maalmaha soo socda waxaan kusoo qaadan doonaa xoog sirdoon oo kale.